السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiinba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada idinku talagalnay maanta oo Isniin ah taariikhduna ay tahay 1 bisha Luulyo sanadka 2024. haddaba barnaamijku waa kii ugu horeeyay barnaamijyada maanta aan idin soo gudbin doono haddii Allah uu dili ka raali noqdo. dhowr qodob oo muhiim ah ayaan barnaamijka idinku hayaa. إسرائيل ayaa la sheegay mas'uuliyiinteedu inay ku kala qaybsameen markii la soo daayay maanta agaasimihii guud isbitaalka Al-Shifa iyo konton kale oo kamid ah shaqaalihii caafimaadka iyo dad kale oo reer Gaza. haddaba sababta loo soo daayay maxay tahay ayaa la isku haystaa gudaha Israa'iil. iyagana markii ay soo gaareen Gaza ayay shir jaraa'id qabteen oo ay ka hadleen xaaladda iyo dhibaatada ka jirta xabsiyada gudaha Israa'iil. haddaba tafaasiisha sheekada waan idin hayaa. shujaaciya ayaa war cusub aan idinkaga hayaa maanta. ciidanka Israa'iil oo la sheegay in laga gubay taangiyo khasaaro xoog lana ay la kulmeen saacadihii la soo dhaafay dagaal culus oo ka soconaya qaybo kamid ah shujaaciya iyo Rafax. iyana tafaasiil baan idinkaga hayaa. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un jagaxiirka ayaa la sheegay sheeko la yaab leh inuu sameeyay gantaal uu ridaaleer maanta tijaabiyay kadib isagii ku soo laabtay. haddaba sidee wax u jiraan gantaal noocuu ahaa? tafaasiisha sheekada la yaab kale maanta oo Isniin aroortii hore ka dhacday Kuuriya ayaanu barnaamijka iyana idinku haynaa. wasiirka gaashaandhigga ayaa maanta soo saaray warbixin uu ku leeyahay Israa'iil 10,000 oo askari loo baahay. haddaan askar la keenin dagaal ma socon karo. waa khalaas askartu waa baabaaday. sidaa daraadeed waa in degdeg loo soo qoraa wadaada diimeedka xerowga ah kadib markii dhawaan maxkamaddu ay amartay in ciidan laga dhigi karo. haddaba iyagiina mudaaharaad ay bilaabeen Qudus qayla ka socota. barnaamijka ayaan iyana idinkugu soo gudbin doonaa. qodobadaasi iyo wixii kale warara soo kordha ayaanu barnaamijka idinkula wadaagi doonaa. kulanti wanaagsan khiyaaray meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay maanta oo Isniin ah. haddaba qodobka ugu horeeya barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi wiilka dhalinta yar ee aan u bixiyay jeegada xiirka. wiilka jeega xiirka Kim Jong Un ayaa waxa leeyahay sheeko la yaab leh ayuu sameeyay maanta oo Isniin. horta waxa ay sabtidii ayuu qaylo bilaabay. loolatus ayaa waxa wada sameynaya Kuuriyada Koonfureed, Japan iyo macalinka weyn. ninkan marka waxaas ma arki karo asaga. wuxuu leeyahay waxaan waa ay dhibayaan joojiye. nimankan loolatuskaasi marka iska habaysteen. wuxuu kaloo sameeyay Kuuriyada Waqooyi wararkii ugu waaweynaa waxaa kamid ah ninaa wuxuu dhageystay muusikada reer galbeedka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo waa la dilay. nin noocaas oo dadka meel ugu xiran oo aan kala jecleen waxaan waaye. ninkii marka loolatuskan hala joojiyo waa ay dhibayaa uu yiri. nimankii waa iska wateen hawshoodii. Kuuriyada Koonfureed iyo Japan iyo Mareykan iyo hawshooda iska wateen. ninkan marka subaxii markii la soo kaco jeega xiirka caadi ma ah. subaxii la soo kacaa kafeega la shubana wuxuu leeyahay la yiri mugtay maalmahan gantaal dhan ma la ridine maxaa dhacay ma la tijaabiyo hala rido uu leeyahay. saaki marka waxa la yiri markuu odagu soo kacay kafeega shubtay asoo ka xanaaqsan loolatuskan ay sameynayaan Mareykan iyo Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ayuu wuxuu yiri gantaalaha hala tijaabiyo. marka warbaahinta qaar waxay leeyihiin gantaalaha laba nooc ay ahaayeen laba qayb ay ahaayeen laba gantaal. mid waa lagu guuleystay leeyihiin. midka kale waxba asoo wax ka dhiman yihiin oo farsamadiisa socoto yira ilaa hal tijaabiyo. markaasuu inta baxay ayuu ayagu ku soo laabtaa leeyahay isla waqooyiga Kuuriya caasimada meel agteeda ayaa la sheegayaa inuu ku dhacaa leeyahay.
taasaa marka cabsi weyn iyo khalkhal badan keentay sheega xeer wuxuu ka naxay malaawashiisa waa wataa haddaba aan idin tuso marka sheeko la yaab leh oo hadda laga qoray arrintaasi dhacday saakay haddaba wargeyska la yidhaahdo asharqul awsad wuxuu leeyahay kuuriyada waqooyi waxay riday 2 gantaal oo balaastig ah mid ka mid ah ayaa ku dhacay meel ku dhow caasimadeeda macnaha caasimadii wadankeeda agteeda ayuuba ku dhacay mid ka mid ah haddaba sida ay wax u dhaceen tafaasiil ayuu wargeysku sii wada wuxuu leeyahay kuuriyada koonfureed ayaa waxay sheegeen maanta oo isniina in kuuriyada waqooyi ay riday oo ay markaa ay riday 2 gantaal oo balaastig ah mid ka mid ah waxaa la sheegayaa inuu socotay hawshiisii oo macnaha uusan dhammaystirneen laakiin waxaa la sheegayaa in markii la riday uu kusoo leexday uu ku dhacay Pyongyang haddaba waxaa la sheegayaa sheekadanu inay tahay mid la yaab leh waxaana weerar gantaalahan ridistoodii ay dhaceen ay leedahay jiradda saacadihii hore ee saakay oo isniina horta warka kuuriyada waqooyi war lagama hayo meesha mogtahay dadka falanqayaasha laftirkoodu waa niman aad wax u taxliiliyo waay waxbay fiiriyaan waxay leeyihiin kuuriyada koonfureed maraykanayba saaxiib la tahay kuuriyada waqooyi waxa ka socda maxaa ka galay sideese ku ogaatay in gantaalihii lagu fashilmay mid uu caasimada agteeda ku dhacay waxaasee ku ogaatay taas laftirkeeda mogtahay warka meeshuu ka yimidaa la isweydiinaa waxaa la yidhi jaagaxeer wuxuu ku fashilmay saakay gantaalo uu ridaayay mid waa u hirgalo waa riday midka kalena inta soo jiiray caasimada agteeda ku dhacay warkaas marka war reer galbeed leh waay kuuriyada koonfureed ayna kasoo xiganayaan u fiirsada kuuriyada koonfureed iyo ruuxii waqooyi marka waa baysan necab yihiin mogta haddii tan wax wanaagsan samayso xataa tan maba waxay leedahay wax xun ay samaysa marka waxaan leeyahay warkaas xoogaa yar waxbaa ku jira inkastoo la heli karo xogta 2 kuuriyo waa isku wadan ahaan jireen oo la kala jaray waa isku dadkii inay xogta heli karaan waa laga yaabaa in saas wax ay u dhaceen in wuxuu ka badbadis yihiin waa laga yaabaa laakiin ninka la leeyahay jaagaxeerka sidiisaba nin naxamaaha gantaalaha waa iska tijaabsadaa waana sharciya ka yaala markay kuwaas dhoolatus bilaabaan isaguna gantaalo bilaabaa dhoolatuska iyo gantaalaha way isla socdaan dhoolatusay sameynayaan isaguna gantaalo ridisu ku bilaabaa marka sheekadu marka halkaas mare tafaasiil badan marka sheekadan lagama hayo dhinaca kuuriyada waqooyi jaagaxeerka wali wax wara kama soo saarin waxa kaliya warka la wadwado ay u jeedaan waxa sheegay kuuriyada koonfureed oo marka la leeyahay ninkii jaagaxeera waa fashilmay saakay isaga isdili gaaray oo gantaal inta riday ay caasimadiisa ku soo dhawatay qodobkaas halkaas aan kaga gudbaynaa sheekooyinka Gaza iyo wixii laga qoray iyo dagaalada way noo soo socdaan balse arin cajiib aan marka ka hadlaynaa muddo 7 bilood ah Israa'iil waxa u xirnaa agaasimihii isbitaalkii weynaa ee Al-Shifa ay gali jireen waagii ay weerarka ku qaadayeen ayaa maartay la qabtay waliba waxaa la qabtay isagoo la socda kolonyo baabuur dad dhaawacyo wada oo socda ayaa la qabtay Netsarim deegaanka la leeyahay ayaa 7 bilood ka hor lagu qabtay waa la xiray isaga iyo taaqamkii la socday ama raggii caafimaadka ka shaqeynayay ee la socday iyo wixii oo dhan xabsiga lagu tuuray Israa'iil marka waxa meediyaha u sheegtay inuu ninka kanu u fududeynayay Al-Qassam inay dad meesha ku daaweysato ka kaxaysato ka samaysato oo la shaqeynayay marka ninkii 7 bilood u xirnaa hay-adihii caafimaadka adduunka oo dhan maaragtay wixii oo dhan qayle bilaabeen dhakhaatiirtii adduunka waxay leeyihiin ninka dadkan masaakiinta ee isbitaalada ka shaqeynaya maxaa u xiranaysaa haddaynaan wax cadaymaa ku hayn ha la sii daayo 7 bilooda waxaa lagu hayay ha la sii daayo ilaahay amarkii dee maanta ilaahay toodii maaragtay ay timid oo la sii daayay markii la sii daayay haddana qayle dhexdoodii Israa'iiliyiin see loo sii daynaa dad maaragtay la shaqeynayo la leeyahay nimankan wax khariba ee Xamaas see loo sii daynaa raggan camal in la sii daayo ma xog badan in laga helay macnaha wax badan ay og yihiin rag waaweyn qaylanayo dawladii ku haystaa waxay leeyihiin Netanyahu wuxuu rabo noo sheegaa maalintuu rabo dadkan noocaas oo maalintuu rabo waa sii daynaa waxaas ma jiraan
bin Ghafiir iyo Gantz iyo rag badan aqeelinay haddaba ninkan markii la soo daayay isbitaalka Al-Nasir la yiraahdo ee magaalada Gaza ayuu shir jaraa'id ku qabtay rag kalena way hadleen iyagana 50 qof oo kala la soo daayay oo shaqaale caafimaad u badan laakiin dad kalena ay ku jiraan ayaa la soo daayay marka waxay ka sheegayaan dhibaatada ka jirta meesha iyo sida dadka loo cadaabo dhibka ka jira xabsiyada waa yaabaysaa haddaba marka ninkan wuxuu uu sheegay qaar ka mid ah haddaan halkan idinkugu soo gudbiyo wakaaladda wararka ee Anadolu waxay leedahay maamulaha isbitaalka Al-Shifa ee magaalada Gaza wuxuu sheegay Israa'iil inaysan aysan keenin cadeymo iyo tuhun cadayn ah kadib markii ay 3 jeer maxkamadda geeyeen haddaba warbixintu marka way sii socotay waxa leeyahay agaasimaha isbitaalka Al-Shifa ee magaalada Gaza Dr. Mohammed Abu Salima ayaa shir jaraa'id waxa uu qabtay saacado kadib markii la sii daayay waxa uu sheegay in la xiray maalinkii la qabanayay isagoo la socda gawaari kuwa gargaarka degdega oo caafimaad oo dhaawacyo wada waxaana ka qaadnay ayuu yiri dhaawacyadaas isbitaalka Al-Shifa waxaynu ku sii jeednay dhinaca koonfurta si ay dadka caafimaad u helaan markii aynu marinay deegaanka la yiraahdo Netsarim ayaa waxaana qabtay ciidanka halkaas ayaana la ku taxaabay marka waxa uu ka hadlay dhibaatada halka ka jirta iyo mushkiladda halka ka jirta dad badan oo xiran wuxuu sheegay inay ka cabanayaan cudurro aad marka dhibaato ugu keeni kara sida cudurka sokorta oo marka dad badan ay la ildaran yihiin oo qaar dhiikar ay qabaan mushkilado badan ayaa meesha ka jira xadgudub badan ayaa lagu sameeyaa ayuu sheegay marka dhibaatooyin fara badan inay halka ka jiraan uu sheegay tawaliska ogyahay dhibaatooyinkaas dhowr jeer hore la sheegay hay-ado badan ka hadlay Falastiiniyiin waxay dhahaan dadka si xun loola dhaqmo Xamaas dhowr jeer warbixin ka soo saartay hadda maanta Xamaas waray soo saartay leedahay sida dhaqaatiirta iyo agaasimayaasha la soo daayay ay sheegayaan adduunku waa kana dhibaatada halka ka jirta ma ka hadlaan dadkeena xabsiyada ku jira ee la dhibaateenayo ma laga hadlo marka hawshaas halkaas aan kaga gudbaynaa sheekada kale xiisaha leh dagaalkii wixii waa noo soo socdaa waxay tahay wasiirka gaashaandhigga Galant ninka la leeyahay Israa'iil ayaa maanta hadlay maalin banina hadlaa hadda koor abaanduulihii hadalkiisa idin soo daayay oo lahaa askar ma hayno shan guutaan u baahanahay ciidan hal laga keeno nimankan wadaad diimeedka ciidan kala ma hayne hadalkaas waa weyn maanta isla tabti oo kale waxa u hadlay wasiirka gaashaandhigga Galant ninka la leeyahay wuxuu leeyahay ciidankeenu waxay u baahan yihiin 10,000 oo askari oo degdeg ah macnaha maxaa waa hadaan la helin khatar ku jirnaa waay nimankan waa leedeen marka lagu leeyahay nimanka kan waa dhamaadeen waa baaba'een lagu leeyahay ciyaar ma xogaha iska soo daba dhacaya iyo iyaga laftirkooda qiraalkooda marka aragto ayay ku cadaanaysaa waxaan maalin walba nagta lagu hayo hadda taangiya la gubaa leeyahay maalin walba taangiga la gubaa 10 qof u yaraan dhex saaran xagee aadeen dadkaas maxay yihiin marka intee ka baxeen wax dhaawacma iyo wax dhintay noqonaya askartu de qaar dhaawacoodu fogaana nina lugta gooyay nina cuuryaama nina socona waxa intee marka askarigi uu ku diyaarsan hadaba marka ninka sheekadan uu qoray sheekadan maanta laga soo xigtay wasiirka gaashaandhigga wuxuu leeyahay Galant waxa uu sheegay in loo baahan yahay sida ugu dhaqsaha badan in loo helo 10,000 oo askari oo dheeraada oo ciidanka lagu soo daro haddaba warbixintiisa way sii socotay ninka wasiirka gaashaandhigga Israa'iil wuxuu yiri wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Yoav Galant ayaa maanta Isniina wuxuu sheegay in ciidanku ay u baahan yihiin ilaa 10,000 oo askari oo dheeraada oo degdeg waliba loogu baahan yahay idaacadda ciidanka oo soo xiganaysa wasiirka gaashaandhigga Galant ayaa wuxuu sheegay gudida arrimaha dibadda iyo amniga baarlamaanka inay u gudbiyeen sheeko ku saabsan in 10,000 ee askari degdeg loogu baahan yahay
wasiirku wuu sii tilmaamay wuxuu yidhi waxaa loo baahan yahay sida ugu dhaqsaha badan in markaa loo askareeyo 4800 oo ka tirsan yahuudda mutadayiniinta ama dhinaca diintan u go'on leh waa xerowyaasha yahuudda 4800 hadda laga soo qoriyo maxkamadii sare Soomaali hore waa laga qori karaa ma dhinaa qafaal waay sheekadii waagi dawladii kacaanka markii qofka hebel waa la qafaalay askartii qafaasho xooga lagu askareeyay ma maqli jirin tiyo kala rabaa inay ka dhacdo meesha nimanka markuu waa ogiyeen nimanka wadaad diimeedka wax dagaalka nacab wax ka fulaysan malaalay nimanka waxay leeyahay war anaga diinta tawreedka u go'an in dhaafa dagaal adika la aada nimankiinaan diinta aan shaqada ku leenahay anaga diinta idin war diintiina ma ahane maanta wuxuu yiri 4800 ha laga soo qoro markaas mudaharaadka ay sameynayaan isku soo baxa iyaga iyo booliiska qaylada ka socota Qudus hadda wararkii ugu dambeeyay waa yaabisa xilleen anaga ma rabno mana loo geenay Al-Yaasiin waa diidnay leeyihiin Al-Yaasiin ma tagaynay leeyahay anaga Gaza ma u dhawaaneen war maxaa waddanka wax ma kuleedin ma anaga meeshan diinta idinayna diinta ilaalis u baax marka hawshaas marka halkaas ay ka dhaxtalo tafatay nimankaasu halkaas ay hawshu barsiinayaan qodobka kale ugu dambeeya waxaan ku eegaynaa wararkii ugu dambeeyay saaka ilaa hadda naga soo gaaraya Gaza dagaalo culus ayaa waxa ka socdaan Shujaaciya iyo Rafah sida la leeyahay haddaba wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera ay qorayso waxay leedahay journaalka la yiraahdo Yadacood Ahronot ee ka soo baxay Israa'iil ayaa wuxuu qiray oo uu sheegayaa Hamas inay dib u soo ceshatay haykalkeedii ama habkeedii military iyo mid ka dhaqaale magaalada Shujaaciya macnaha Shujaaciya markay ciidanka Israa'iil galeen ayay waxay ka soo sheegayaan waxay leeyihiin nimankan mar hore anaga meesha noogu dambeysay dhowr bilood ka hor markaan ku soo laabano waa isla tabti nidaamkoodii kala dambeyntoodii ciidankoodii maaliyadoodii waxooda dhan way diyaarsan yahay marka wax faa'iido oo maartay dagaalkii hore aanu ka helna ma jirno hadda dagaalkan aan bilaabayno kama kaana waa sidii hore uu ahaa ayuu yahay waay marka waxa qiraya joornaaladoodii iyo mas'uuliyiin iyagoo soo xiganaya waxay leeyihiin nimanku xoogooda wali waa sidiisii meesha wax jabay ma jiraan waayahay warbixin kale oo wararkii ugu waaweynaa kamid ah waxay leeyihiin kooxda Al-Qassam ayaa war soo saartay waxay sheegtay hawlgallo cusub inay ka dhaceen Ash-Shujaaciya Kataib Al-Qassam waxay sheegtay inay bartilmaameedsadeen laba taangi oo Israa'iil ay leedahay nooca loo yaqaano Merkava waxaan u dhignay dhaheen miinada nooca loo yaqaano Shawaab waxaana ay ka dhacday sheekadaasu Shujaaciya dhinaca bari ee marinka Gaza haddaba waxa sidoo kale ay Qassam sheegtay mid kamid ah dagaalyahankeeda toogashada ku fiican inuu toogtay askar ka tirsan ciidanka Israa'iil ee magaalada Shujaaciya waxa sidoo kale dhanka kale ay sheegeen inay sameeyeen oo ay bartilmaameedsadeen ciidan Israa'iiliyiin oo ku jiray guri magaalada Shujaaciya ku taala dhinaca bari ee Gaza waxayna sheegeen gurigaasu inay la dhiceen gantaaro iyo rasaas waxayna sheegeen askartii guriga ku jirtay inay noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay dhanka kale Rafah waxa la sheegayaa iyaduna in dagaalo goosgoos ay ka socdaan kooxda Israa'iil Qudus waxay sheegtay inay hoobiyaal ku garaaceen fariisimo ay joogeen ciidamada Israa'iil waaye wararkii ugu dambeeyay ilaa hadda halkaas maraysa Shujaaciya waa la isku hayaa meesha ugu kulul hadda aan akhrinayay warbixinada waa Shujaaciya miinaha dhihin gantaalaha dhihin kuwa guri lagu weeraraha dhihin kuwa la toogana meel banaanaha dhihin nagtaa la isku hayaa kullay markay saan oo kale wararka iskaga soo dabadiraan fiidiyoyo iyo waxbay keeni doonaan barnaamijyada dambaan bal ku eegi doonaa haddii fiidiyoyada ay soo hormaraan oo ay soo diraan haddaba barnaamijkeenii ugu horreeyay maanta oo Isniina taariikhduna ay tahay 1 Luulyo inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa fakari aragti waxa qabto noogu soo qor qaybta commentiska iyo fariimaha fadlan barnaamijka like gareeya oo share gareeya haddaad Facebook iyo YouTube nagala socotaan haddaad nagu cusub tahay subscribe-ka ka iloobin YouTube-ka Facebook-ana follow garay inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno akhyaaray meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo